Beri baa waxaa dhacday in nin maalqabeen baqayl ah uu lacag deymiyey nin ganacsade ahaa. Dib u dhacyo badan kadib, ninkii ganacsadaha ahaa waa awoodi waayey inuu lacagtii deynta iska gudo. Ninkii maalqabeenka baqaylka ahaa wuxuu isha ku hayay gabar dhalinyaro ah oo filsan qurux badan oo uu dhalay ninka isaga u qaamaysan ee deynta ka qaatay. Isagoo iska dhigaya inuu yahay qof caawin badan ayaa wuxuu u soo jeediyey in haddii ninka ganacsadaha uu u oggolaado inuu gabadhiisa u guuriyo uu deynta ka cafin doono. Haddiise ganacsaduhu ku fashilmo inuu deynta iska bixiyo, uu hoog iyo ba'ay la kulmi doono. Gabadhii iyo aabbaheedna waxay ku sugnaayeen xaalad dhiiladeeda wadataa. Maalqabeenkii baqaylka ahaa, isagoo iska dhigaya inuu yahay nin deeqsi ah, ayaa waxa u soo jeediyey in qori-tuur lagu dhammeeyo hawsha. Marka dhinaca nasiibka u hiiliyo ayaa guulaysan doona. Maalqabeenkii baqaylka ahaa wuxuu yidhi, waxaan 2 dhagax gaar ahaan nuuca dhagax diixeedka xeebaha iyo webiyada qaarkood laga helo, oo mid cad iyo mid madow ah, ayaan dhex dhigi doonaa boorso maran. Gabadha ayaa gacanta gelinaysa boorsada si ay mid u soo qaadato. Haddii ay dhagax madow soo qaadato, waa inaad oggolaataan inaan guursado gabadha, deyntana waan idinka cafinayaa. Haddiise midka cad ay soo qaado, qasab ma noqonayso inaan guursado, deyntana waan cafinayaa. Gabadhu kaliya ma ahayn gabar qurux badnayd, balse waxay ahayd cabqariyad caqli badan. Gabadhii yareed qorshihii uu soo jeediyey baqaylkii way soo dhoweysay, sababtoo ah ma aysan doonayn in aabbaheed xabsi uu u galo deynta lagu leeyahay darteed. Maalintii qori-tuurka ayaa la gaaray. Dadkii tuulada oo dhammi waxay u soo daawasho tageen arrinta lagu go'aaminayo qori-tuurka iyo cidda nasiibka u hiilin doono. Waxa ay taagnaayeen webiga qarkiisa, meeshaas oo dhagax diixeedku daadsan yahay si tirabeel ah. Maalqabeenkii deynta bixiyey waa uu foorarsaday si uu u soo qaado 2dii dhagax. Wuxuu iska eegay dhinacyada si uu u hubiyo khiyaanadii uu ku talagalay fulinteeda. Wuxuu soo qaaday 2 dhagax oo madow si ay ugu suuro gasho inuu gabadha hantiyo. Si deggan ayay gabadhu u daawanaysay khiyaanada uu sameynayay ninka maalqabeenka ahi. Waxay ahayd qofka keliya ee fahmay dibindaabiyada ku gadaaman arrinta qori-tuurka. Gabadhii waxaa loo sheegay inay 1 dhagax soo qaadato, kaasoo nasiibkeeda iyo kan aabbaheedba ku xiran yahay. Kala doorashadu ma sahlana. Waa inay kala doorataa ama nolosheeda oo meel aysan jeclayn u hagtaa, ama aabbaheed oo dhibaato kala kulma, wax si uun loo furdaamin karo. Diyaar uma aysan ahayn labadaba, gaar ahaan midda aabbaheed. Sida tan ayayna samaysay. Waxa ay gacanta gelisay boorsadii si ay u soo qaaddo 1 dhagax, iyadoo si buuxda uga warhaysay 2da dhagaxba inay madow yihiin oo khiyaano iyo jallaafo isuwan meesha lagu diyaariyey. Markii ay gacanta ka sii bixinaysay boorsada, iyadoo xabad dhagaxa soo qaaday, ayay si ula kac iska dhigtay qof miyir daboolmay. Dabadeedna istaagga ka dhacday, dhagaxii ay soo qaadayna dhulka ku sii daysay si uu ugu dhex qasmo dhagaxdii kale ee meesha ku daadsanaa. Way sare joogsatay, raaligelinna way ka bixisay arrinta dhacda ee la xiriira xanuunka ku soo booday. Waxay tiri, aan fiirina midabka dhagaxa boorsada ku haray, taasoo noo sheegi doonta midabka aan qaaday. Dhagaxa boorsada ku jira dabcan waa madow, waxaana loo qaatay midka ay qaadatay inuu ahaa midkii caddaa. Jamaahiirtii tuulada hortooda, ninkii maalqabeenka baqaylka ahaa kuma dhicin inuu aqbalo daacaddaradiisa, wuxuuna ku qasbanaaday inuu la noolaado go'aankiisa qori-tuurka. Sidaas ayayna gabadhii iyo aabbaheedba xor ku noqdeen. Gabadha ficilkeeda waxaa hagayay rabitaan lagu ilaalinayo sharaf. Waxay ahayd dhiiranaanteeda waxa ku caawiyey inay isdejiso, kana fekerta xal caaqiba leh oo ku aadan arrinta ku gadaaman qori-tuurka. Fakarkeeda degdega ahi wuxuu muujiyey in xigmaddu ay tahay oo keliya dabaqaadda waqtiyeysan ee hal-abuurnimada iyo caqliga oo laga shaqaysiiyo goorta ay xaaladdu cakiran tahay. Keliya dadka dhiiran ayaa aqbala caqabadaha nolosha si ay ugu noolaadaan xushmo iyo sharaf. Waxaan filayaa saaxiibayaal inaad ka bogateen sheekada. Aragtidaada ku aadan sheekada hoos inoogu reeb si uu dad badan u gaaro muuqaalkanna. Inoo like garey oo inoo share garey.